السلام عليكم. ساء مقشنا maybe هدا مقلن حتى qarax baa dhacay waqtiga hor waxayna ka dhacday meel aan u socday meel aan miirin ku lahayn dad masaakiin baa ku dhinteen. I don't know when this is gonna come to rest ma garanayo laakiin ilaahay noo soo barya ilaah u barya dadka haddaynasan meesha ku dhintay. Allah bring the enemies to rest. Somali waxa weeye dadka nolol u dagaaltamaya just to live day-to-day life struggle. marka walaalyaal u soo duceeyay dadka Soomaaliya ku nool. Soomaaliya u soo duceeyay ilaahay inuu qabto cadowga. dadka meesha ku dhaawacmay mise ku dhinteen Soomaaliya dhan bay ka wada dhimatay. dad qof hooyadiisa qof walaalkiisa qof naashiisa ilaahay u naxariisto dhammaan ilaahay u wada naxariisto. wallahi العظيم cadow. And the sad part is cadowga dhexdeena way is within ourselves. I hortan garan doono in laga faa'iidaysanayo wadankeena laga faa'iidaysanayo hard marka dadka dhexdiisa dadka walaalaha dhexdooda isdilayo. marka please wax kale ma dhihi karo. Somalia needs prayers from everyone. Okay, isku dacayna qof kan dadka qarxiya haddii la weydiiyo why qof dadkan u dishay ambas u qarxisay ambas isku qarxisay I'm sure jawaab inay jirin. We're killing, bombing each other. No iyo jawaab ee hadda qofka dhihi karo saas sababtaasna u dilay. There's no reason, no big reason, no reason at all. qof kale naftiisa noloshiisa ka qaaday. There isn't. Stupid little things. dhulka way naga badan yihiin maalka way naga badan yihiin waxaan dhan we can enjoy it together without killing each other. Subhanallah. Just when you think there's a little hope, there's a light at the end of the tunnel. سؤال ماشي تعالوا حبيبي, what is the government doing about this? Somehow, I'm sure some of you guys asking me that question. What are you doing about this? Well, guess what, you guys? To be quite honest with you, nothing. There's nothing. That's it. Pretty much. Not doing anything about it. What can I do? I'm alone. My vote, me alone. Can't really. I'm trying. I haven't give up hope. I will never give up hope until the last breath. I won't. I'll fight as much as I can. Waxaan ku jirnaa mooshimo iyo wax unnecessary ahan we're too busy with that. So how can we have time to worry about security? Because their biggest worry is mooshinka. I don't know why. Why do we have to build a government? Break it, build it, break it, and that's. Why can't we just build it? Why can't we just build the government and never break it? Isn't that the question you're wondering, right? Well, I know Rajab and the nature state. I know you guys have hopes and had hope and hope in the government this will change. You know? Heck, that's my hope too. And I'm part of it. Wondering why you're not active. Because I can't really change by myself. I need help. But that can agrees on what's going on. Sometimes we're just being blackmailed. And we can't do anything.